kadib markii ay maanta sheegtay xukuumadda Somaliland in markaasi ay gacanta ku hayso 3 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus ah isla markaasna ay kala yihiin 2 kiis oo ku sugan gudaha Hargeysa iyo 1 kiis oo ku sugan Boorama ayaa waxaa goordhaweyd baxsaday 2 kiis ee ku sugnaa magaalada Hargeysa waxayna ka baxsadeen goobtii karantiinka ahayd iyadoo baadigoob xooggan ay ugu jiraan ciidanka booliska iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada maamulkaasi xubnahan baxsaday ayaa aad waxa u raadinaya ciidamada maamulkaasi sidoo kale waxay dansadeen dhammaan telefoonadii lagala xiriiri lahaa xubnahan baxsadka ah ee markaasi laga helay caabuqa COVID-19 ee magaalada Hargeysa ku dhex jira ayaa shacabka waxa ay ku abuureen walwal iyadoo cabsida ugu weyn ay tahay baxsashada ay ka baxsadeen markii ay ogaadeen natiijada caabuqa COVID-19